السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبيني ما وناكسنا خيارتنا داوانا يساي ميل كستو جوجتان دافع عالمك كسور دوادا وروح نعاودي كاهينا عالمك يوتيوب كينن بدي بري channel وركن عاودي كاهينا عالمك waxa ugu doorroon Mareykanka Asia iyo Europe iyo Africa iyo wararka Soomaalida haddaan ku horeeyo wararka Mareykanka madaxweyne Donald Trump ayaa si adag u cambaariyay duqa Minneapolis Jacob Frey kadib markii uu diiday fulinta sharciyada socdaalka federaalka. Trump wuxuu ku tilmaamay hadalka Frey mid sharci jabin ah oo khatar ku ah amniga. Frey ayaa sheegay in booliska Minneapolis diiradda saaraan badbaadada bulshada ee aanay ka shaqayn sharciyada socdaalka. Arrintan waxay si gaar ah u taabatay jaaliyadda Soomaalida Minneapolis maadaama magaalada ay tahay Century City. Sidoo kale muusikaystaha Bruce Springsteen ayaa hees ka sii daayay xaaladda muhaajiriinta isagoo ka hor yimid siyaasadda Trump. Sidoo kale mas'uuliyiin sare oo Mareykan ah ayaa booqday Masar, Itoobiya, Kenya iyo Djibouti. Kulamada waxaa diiradda lagu saarayay amniga, iskaashiga dhaqaale iyo xasilinta geeska Afrika. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa kulanka ku tilmaamay mid guul ah oo xoojinaya xiriirka labada dal. Sidoo kale wararka ka imaanaya midowga Yurub EU ayaa sheegay in loo baahan yahay digital euro si loo yareeyo ku tiirsanaanta nidaamyada lacag bixinta ee Mareykanka. Sidoo kale madaxa arrimaha dibadda ee EU ayaa sheegay in Yurub aysan mar dambe ahayn xarunta ugu weyn ee saameynta siyaasadeed Washington, taasoo muujinaysa isbeddel istiraatiiji ah. Sidoo kale Jarmalka ayaa wadahadalo la bilaabay 5 dal oo EU ah si loo hirgeliyo nidaam EU laba xawaare oo go'aanada lagu dadejinayo. Sidoo kale EU ayaa qorsheynaysa in ay ka dhaafto baaritaano dheeri ah gaaska laga keeno Mareykanka iyo Qatar iyadoo la adkeynayo xayiraadaha gaaska Ruushka. Sidoo kale mas'uuliyiin EU ah ayaa sheegay in xiisadda Greenland ay muujisay muhiimadda sugitaanka tamarta Yurub. Sidoo kale wararka ka imaanaya South Africa guddida qiyaasaha beeraha ee South Africa ayaa soo saaray warbixin cusub oo muujinaysa isbeddel ku yimid wax soo saarka dalagyada iyo dhulka la beero, taasoo saameyn ku yeelan karta dhaqaalaha dalka. Xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa lagu weeraray kulan dadweyne oo ay kula hadlaysay dadkeeda Minneapolis. Nin caddaan ah ayaa ku buufiyay dareer uraya, balse ilaaladeeda ayaa si degdeg ah u qabatay ninka. Ilhaan Cumar waxyeello ma soo gaadhin, booliskuna waxay wadaan baaritaan iyo dacwad ka dhan ah ninka weerarka geystay. Wararka ka imaanaya Soomaaliya waxaa ka dhacay maanta baarlamaanka Soomaaliya arrin aad loola yaabay. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waajahaya mucaaradnimadii ugu xoogganayd muddadii xilkiisa kadib isku day lagu doonayay in baarlamaanka loo gudbiyo 5 cutub oo ka mid ah wax ka beddelka dastuurka. Xildhibaano mucaarad ah ayaa si cad u diiday qorshaha qaarna waxay jeexjeexeen waraaqihii la daabacay. Difaacii madaxweynaha ayaa aad u yaraaday marka laga reebo General Fartaag oo dood kulul la yeeshay Frembi, halkaasay isku feedheen labadoodu oo ay ka soo wada jeedaan Jubbaland. Labada weliba isfeedhay baa ka soo wada jeeda Jubbaland. Xaaladda baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta cirka isku shareertay iyadoo la jeexjeexay wixii waraaqay meesha yaalayna. Sidoo kale wararka ka imaanaya Jamhuuriyadda Somaliland golaha wasiirada ee Somaliland ayaa maanta yeeshay kulankoodii joogtada ahaa, waxaanay go'aamo adag ka gaadheen cid kasta oo ka soo horjeesta aqoonsiga Somaliland. Waxaa la sheegay in tallaabo sharci ah laga qaadi doono qof kasta oo ku baaqa rabshado ama falal amni darro ama ka soo horjeeda ictiraafka Somaliland la siiyay. Golaha ayaa caddeeyay in xorriyadda hadalku aan loo adeegsan karin carqaladaynta aqoonsiga Somaliland. Go'aamadan ayaa dhaqan galay
maanta oo arbaca ah taasoo somalilan ictiraafkeeda ay ku difaacayso habeennimo wanaagsan ay khiyaartana daawanaysaa meel kastood ka joogtaan daafaha caalamka war waxaan idiin hayno waa naga intaa tan iyo inta dib u kulmayno habeen wanaagsan channelkana kor u qaada saaxiibayaal akhyaartahay باي